wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in saaka waaberigii ay al-shabaab weerar xoogan ay ku soo qaadeen saldhig 4 kiiloomitir u jira magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyahayaga Cabdi Xasan Xarago. wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in saaka waaberigii ay xarakada al-shabaab ay weerar xoogan ay ku soo qaadeen saldhig 4 kiiloomitir u jira magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. al-shabaab oo la wareegay saldhig 4 kiiloomitir oo kaliya u jira magaalada Jowhar ayaa la sheegayaa in markii dambe ay isaga baxeen. dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa saaka weerar xoogan ku qaaday saldhig ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin agagaarka kiliga waraabow ee duleedka magaalada Jowhar. warbaahinta al-shabaab ayaa baahisay in ciidamada al-shabaab ay qabsadeen saldhigaasi isla markaana weerarkaasi ay ku dileen 6 ka mid ah ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugnaa saldhiga lala wareegay halka kuwa kalena ay ku dhaawaceen. saldhiga ciidamada dowladda oo ay sheegteen al-shabaab in ay la wareegeen waxa uu 4 kiiloomitir oo kaliya u jira magaalada Jowhar waxa uuna uga beegan yahay dhinaca galbeed. dhinaca kale maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dagaalkaas. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabeelle Maxamed Kulmiye ayaa sheegay in weerarka ka dhacay deegaanka Cali Waraabey ee galbeedka magaalada Jowhar lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo fudud oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. agaasimaha ayaa beeniyay sheegashada al-shabaab deegaankana ay weli joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. isku soo wada duub maalmihii u dambeeyay ayaa xarakada al-shabaab waxay dagaalo goosgoosa ay kaga furan yihiin gudaha dalka Soomaaliya balse weli waxaana jirin awood buuxda oo cirib tirta xarakada al-shabaab. Cabdi Xasan Xarago, TV-ga iyo channelka Abwan Xarago Official, magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.